waxaa magaalada Muqdisho ka socda abaabulka dibadbax kale oo looga soo horjeedo afgambigii fashilmay ee 27 December lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xarunta xukuumaddiisa. Dibadbaxan ayaa waxaa qayb ka ah siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan xukuumadda maadaama ay dhawaan si wada jir ah u cambaareeyeen isku daygii afgambi ee horkacay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa shaaciyay in dibadbaxaasi uu dhacayo maalinta Khamiista ee soo socota oo ku taariikhaysan 13 bishan January ee sanadkan 2022. sida uu sheegay Fiqi waxaa sidoo kale banaanbaxaasi lagu dalbanayaa doorasho daahfuran iyo amniga dalka oo gacan aamin ah ku jira xilli uu shirka golaha wada tashiga qaran ay isku mari laayihiin in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. shacabka Muqdisho ayaa iskale maalinkaas ayuu ku yiri Fiqi qoraal kooban oo uu ku shaacinaya banaanbaxa dhacaya Khamiista soo socota. banaanbaxan ayaa ku soo aadaya iyada oo hotel ku yaala Muqdisho shalay la iskugu geeyay haween kaasi oo ay soo abaabuleen maamulka gobolka Banaadir iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa la rumaysan yahay in banaanbaxa looga soo horjeedo afgambigii fashilmay ee 27 December iyo madaxweynihii hore uu ka baaxad weynaan doono midka shalay hotelka la iskugu keenay haweenka ee ka dhacay magaalada Muqdisho. si kastaba Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay muranka doorashooyinka waxaana isha lagu wada hayaa natiijada shirka haatan u socda golaha wada tashiga qaran isla markaana ka socda teendhada afisyooni ee magaalada Muqdisho. dhinaca kalena wararka ka imaanaya deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud oo kamid ah deegaanada hoostaga degmada Cadaado ayaa waxa ay sheegayaan in aroornimadii hore ee saakay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dagaal kula wareegeen qaybo kamid ah deegaankaasi. dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalamayaasha Al-Shabaab weerar xoogan oo dhowr jiha ay ku soo qaadeen deegaankaasi Baxdo waxaana halkaasi iska caabin xoogan ay kala kulmeen Al-Shabaab dadka deegaankaasi iyada oo muddadii uu dagaalku socday la isku adeegsaday hub aad u culus. sida ay dadka deegaanku sheegeen dagaalka ayaa ahaa mid aad u xoogan isla markaana wuxuu xoogiisu ka dhacay gudaha deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud waxaana la soo warinayaa in dagaalku uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh walow aan la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi. Al-Shabaab ayaa dib looga saaray gudaha deegaanka Baxdo mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka maamulka Galmudug oo ku aadan dagaalka Shabaab saakay ee kula wareegeen deegaanka Baxdo oo markii dambe la soo sheegay in dib looga saaray. Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro noocan oo kala ah waxay horey ugu qaadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug oo ay ku wada sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug.